madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqeynayo sidii uu Soomaaliya ugu qancin lahaa in ay wada xaajoodo dhexdooda ka yeeshaan khilaafka xuduudda badda ee labada dal oo horyaala maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah taasi oo bilowga dhageysiga dacwadaasi u mudaysay 4 bisha November ee sanadkan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa khudbadu ka jeediyay kulanka guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa oo ka socda magaalada New York. Waxa uu ku sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in xal loo helo waxa ugu yeedhay khilaafka kala jaray xiriirkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya. My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia. Kuumadaydu waxa ay wali Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xiriir kala samaysaa dadaalka ay doonayso in xal saaxiibtinimo oo waara laga gaadho muranka xuduudka badda ee noo dhaxeeya. Sustainable solution to the maritime boundary disputes between us. madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in dawladdiisu ay soo dhaweynayso qaraarkii bartamihii bishii September ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika oo Kenya iyo Soomaaliya ku booriyay in ay wada xaajood ka yeeshaan khilaafka u dhaxeeya wada jirna si nabadgelyo u wada raadiyaan xalka. As we all know, the UN Charter privileges sida aynu dhammaanteen ka warqabno xeerka qaramada midoobay waxa uu door bidaa in wada xaajoodka uu yahay habka ugu habboon ee lagu xallin karo khilaafaadka sidaas la mid ah ahdiga qaramada midoobay ee xeerka badahuna waxa uu dhigayaa in calaamadinta xuduudaha badda ee u dhaxeeya dalalka loo maro hab saaxiibtinimo of maritime boundaries between states amicably. madaxweyne Kenyatta waxa uu ku baaqayaa in xalka khilaafka lagu raadiyo wada xaajood waxaanu rajeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay aqbali doonto isla markaana ka shaqeyn doonto sidii xal laba geesood ah oo waara dhinacyadu u aqbali karaan loogana gaadhi lahaa khilaafkan sidoo hadalka u dhigay. madaxweynaha Kenya ayaa hadalkan ka jeediyay 24 saac oo kaliya kadib markii kulan uu soo qabanqaabiyay Midowga Afrika uu madaxweynaha Masar isugu keenay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya iyada oo hadal ay fila Soomaaliya kulankaasi ka soo saartayna ku sheegtay in ay labada dhinac ku heshiiyeen in xiriirkooda ay wanaajinayaan laakiin ay Soomaaliya ku adkeysanayso go'aankeedii ahaa in xalka gaadhista khilaafka loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka.